deegaanka Labilamaane oo ka tirsan degmada Jiriban ee gobolka Mudug ayaa laga dhagax dhigay cilbiyoodkii ugu horeeyay oo deegaankan yeesho. Deegaankan oo ah deegaan oomana ah ayaa munaasabadii lagu dhagax dhigay ayaa waxa ka qayb galay wakaaladda horumarinta biyaha iyo tamarta Puntland, kambaniga Daryeel, maamulka degmada Jiriban iyo maamulka deegaanka Labilamaane. Si wada jir ah ay uga hadleen xafladda daahfurka riigii ugu horeeyay ee laga hirgelinayo deegaankan ayay sida tan uga hadleen. gabar iyo wiil ilma cali iniina ayaa kharashka bixinaya sida ay noo sheegeen. dadkaas kharashka bixinaya naftooda iyo waalidkooda ula bixin. ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkaas in ilaahay ceelka inuu ilaahay sahlo marka ugu horeysa. marka xigtana ilaahay wixii ay la baxaan iyagu deeq bixiyayaashu waxay ilo niyoodeen ilaahay inuu ka sawaabiyo. ilaahay inuu noo fududeeyo risqaan meeshan ka doonayno. ciddii u soo hawlgashay oo ku bixisay fanka oo ay ka mid tahay ilma cali cigaal oo u bixiyey waalidkood, in ilaahay iyagana hawsha u fududeeyo si xasanadeedii iyo khayrka ay ka rabeen ay u taam u noqoto. waalidkii loola niyooday cali cigaalna ilaahay naxariis uu ku siiyo janno. aamiin. mar labaad dadka kale oo ka geysanaya kaalmaha iyo taakulaynta sida wakaaladda biyaha ee Puntland iyo ciddii kale oo la mid ah ayagana waxaan leenahay soo dhowaada. waa mahadsantiin. gacmo furan ku soo dhowaada. waa salaamaya xafladda. waqtigu waa kooban yahay, waa soo koobinaa. waxaan leenahay ceelka horta ilaahay naga siiyo biyo khayr qaba oo ummadda deeqda wixii dafleeyo halkaas waa ka faa'iideysan allaha naga siiyo wax dadka deeqa oo macaan oo dhaqso leh ilaahay naguma dhibo. dadka ceelka baxshay oo ahaa muslimiinta ahaa cabdirasaaq iyo khadiijo caliniin ilaahay waxaan leenahay hawa aqbalo. ceelkan allah ka siiyo biyo khayr qaba. ayagana waxaan leenahay ilaahay hawa aqbalo ajarkoodii ilaahay ha siiyo oo calin allah gaarsiiyo. calin khayr buu ahaa, sadaqa badan buu ahaa. dadkiisna waa ka helay ka tuanta ilaahay dadkiisu ka dhigay dad khayr ka dhigay. ayagana waxaan leenahay ilaahay ha ka dhigo warsad ciida. asagana waxaan ilaahay ha gaarsiiyo. ceelkan allah ka dhigo ceel khayr qaba. ma badna warka maantay anigu aan ku hadlayo waa laba qodob. qodob waxa weeye kambanigii waxaan nahay Daryeel qodayay ceelka haddii alla idmo. waxaan codsanaynaa sidiina lagu duceeyay loo duceeyo in lagu duceeyo ilaahay inuu noo fududeeyo. annaguna inaan waxaan ballan qaadanay aan dadaalayno ilaahay idinkii wixii karaankeenna aan dadaali doono insha Allah. sida loo sheegay ceelkan waxa sababtiisa koobaad lahaa macali cigaal. ilaahayna cid ay u bixiyeen iyo waalidkii ha gaarsiiyo. waa iskaashi marka saddex geesooda wakaaladda horumarinta biyaha oo qayb ka ah ilma cali cigaal oo qayb ka ah iyo hay'adda Daryeel shirkadda Daryeel oo ayana qayb saddexaad ah. iskaashi saddex geesooda u yahay ceelkan insha Allah. waxaa biyo ugu sokaysa meesha aan ka soo kacnay Jiriban oo aan ka soo kacnay maanta. waxa wadadaan soo marnay. dadkaas halkaa jooga biyaha ay ku noolaayeen ama hadda ay ku xisaabtamayeen biyahaas waa biyo. wadada soo marayeen wadadaas ay ahayd. waa garan kadhaa wakaaladda biyo waa maqlaysaa maareey ku xigeenka weyn kan taagan hadda meesha wuu soo maray wuu arkaa. gudoomiyaha degmada wuu joogaa waa kana wuu soo maray. intiina taagan waa ogtihiin. waxa maanta nasiib u yeeshay halka inay dhaqaale geliyaan ilma cali cigaal. sadaqa jaariya allah ka dhigo waa yahay. ilaahayna miisaankooda xasanaadka iyagana ha ugu daro. waalidka ay ula niyoodeen qabriga allah ugu waasiciyo. cadaabka allah kaga xoreeyo. jannadii firdawsana allah ku geeyo. ceelkan reer Labilamaane waxaan rabnaa inoo bilowday inoo dhamaanay insha Allah taala. arabna inaan ku dardaaranno. daban kuleelkiisa la arag dambaskiisa lagama leexdale. Soomaaliya haddana way ka sheekeynaa abaartu markay dhacdaynu ka sheekeynaa. laakiin raadkay reebtay iyo ma soo noqon doontaa iyo hadday soo noqoto maxaa inoo xalaya maxaa inoo xeera dib uma sii fiirin. sanad kastana waa taaganta. markii roob la helo ama xilliga barwaaqada la yahay lagama sii gaashaanto
xilliga abaarta waxaan leenahay gaashaanku ka mid yahay in biyo la helo biyuhuna waa nolosha koowaad ilaahay baa qur-aankiisa inoo ku sheegay labilamaane oo aan ognahay xagga biyaha iyo biyola'aanta ka jirtay oo hadda xilligii abaarta meelihii ugu adkaa dhowr iyo 10 degsiimo oo aan wakaaladda biyaha in badan ka wada hadalay hay-adda keer muddo badan isku haysanay dadkaas si aysan biyola'aantaa dhib ugu imaan oo in biyo loo gaarsiiyo oo degmada Jiriiban iyadoo aan meel kale biyo laga dhaamin iyadoo kulli dadka oo biyo u baahan yihiin ahayd meelaha biyaha laga dhaamiyay meelaha baraagaha leh oo kaliya Cabdi Khayr Maxamed Jamac Puntland TV Jiriiban